بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أول نقصن داوديال كسو دبادة channelka YouTube كاس لعب زافي maanta waxaan idin soo gudbinayaa qisadii Maryam binti Cimraan iyo wiilkeedii Nabi Ciisa calayhi salaam waa qaybtii ugu dambeysay oo ahaa qaybta afraad. walaalahay fadlan walaysa amran filimka ha mootinina dhaxnaha ku qabanina ee daawada filimka bilowga ilaa iyo dhamaadka adinka ayaa dib u ogaan doontaan qisada dhamaadkiisa insha Allah. walaalahayga haddaba aan bilowna qisada insha Allah. dadka oo odayaasha madaxda fadhi ayay qaateen waxay dhaheen waxaan maxaa waaye oo la imaaday wiilkan oo dhalinyarada ah waxay la socotaa khatarkaasne anaga ayaa nagu soo wajahsan maxaa yeelay haddii anaga qofkan sidaan aan ku daano dad badan ayay raacayaan dadka anaga na rumaysan dhan waa naga leexanayaan qofkaas dhinaciisa ayay aadayaan maxaa yeelay wuxuu qalbiyadooda dadka ku kasbaday mucjisooyinkiisa haddii ay sidaan ku socoto saameyn kuma yeelan doono reer bani Israa'iil dhexdooda. kadib ninkii ugu weynaa oo Jerusalem wuxuu dhahay xal inaan helno waayo waa inaan helnaa qof oo Nabi Ciisa oo rumaysan oo laakiin iimaankiisa daciif ah. waa raadiyeen ugu dambeyntii waxay heleen nin oo iimaankiisa daciif ah. ninkaasni waxa la oran jiray Yahuuda Iskariyooton waxayna siiyeen lacag si oo jaanjuus ugu noqdo. markii hore wuxuu rumaysnaa Nabi Ciisa calayhi salaam laakiinse wuxuu damacsanay qofkan wax kale. markuu heli waayay wuxuu rabay qofkan qalbigiisu wuxuu bilaabay inuu shaki iyo hunguri ka buuxsamo. habeen mugti ah ayuu macbadkii wadaadada intuu galay kadib waxaa qaabilay ninkii oo macbadka ugu weynaa wuxuu dhahay ii dhagayso Yahuuda haddaad noo sheegto yacni Ciisa meesha oo joogo waxaa nagu balan ah inaan ku siiyo 30 lacag oo fidda ah oo qalin ah. waa kanay lacagta diyaar waaye bas noo soo sheeg meesha asaga oo joogo Ciisa oo laga heli karo. Yahuuda wuxuu ku iibiyey nebigiisa iyo iimaankiisa qiimo oo yar ah. habeenkaas Nabi Ciisa calayhi salaam wuxuu la fadhiistay xirtiisa waxayna fadhiyaan magaalada meel ka fog oo la yiraahdo beerta zaytuun. kadib Nabi Ciisa calayhi salaam dadkiisa wuxuu dhahay mid idinka mid ah ayaa i khiyaamay xali. dadkii dhan way aamuseen way yaabeen dhammaantooda way is eegeen iyagoo yaaban. mid ka mid ah ayaa yidhi yaa sameeyey waxaan oo foosho xun ah yaa sameeyey. kadib Nabi Ciisa iyo dadkii oo meesha ay joogaan si lama filaan ah waxay u imaadeen askartii oo Roomaanka ahaa. Nabi Ciisa calayhi salaam wuu ogaa waxaan inuu dhacayo asagani si tartiib ah ayaa meeshii joogay ma ordin ma iswaalin mana baxsanin. askartii way qabteen Nabi Ciisa calayhi salaam gacmihiisa ayay xireen oo waxay bilaabeen inay kaxeeyaan. laakiin waqtigaas wax oo cajiib ah ayaa dhacay. markii askartu Nabi Ciisa calayhi salaam u kaxeeyeen qasriga taliyaha waxay bilaabeen askartii inay dareemaan wax oo cajiib ah. wajigii waa isbedelay oo Nabi Ciisa calayhi salaam askartii iyo wadaadadii ayaa is eegay. kadib waxay eegeen ninkii ay xireen wuu isbedelay. Nabi Ciisa calayhi salaam ma ahayn. ilaahay wuxuu wajiga Yahuuda kan khaa'inka ahaa oo Yahuuda la oran jiray oo jaanjuuska ahaa ayaa waxa u bedelay wajigii oo Nabi Ciisa. qofkaani Ciisa ma ahayn waxaas ahay Yahuuda oo loo bedelay wajigii Ciisa calayhi salaam. waqtigaas dhammaantooda way fahmeen runta waxay xireen nin oo khaldan. Nabi Ciisa calayhi salaam ilaahay subxaanahu casa wajalla baa kor u qaaday oo ka badbaadiyey sharkhooladii cadowyaashiisa. haweenkaas magaalada dhan waxaa ka abuurmay khayli buuq khalalaas. waxay dhaheen Ciisa waa la qabtay oo waa la xiray laakiinse runta aad bay ugu duwanayd. laakiinse ninkan oo la qabtay Nabi Ciisa calayhi salaam ma ahayn wuxuu ahaa nin kale oo la yiraahdo Yahuuda. kadib ninkii wuu khayliyey wuxuu dhahay aniga Ciisa ma ihi aniga waxaan ahay Yahuuda aniga waxaan ahay jaanjuuskiina waxaad isoo siiseen 30 oo khalin ah sideen u soo sheego Ciisa laakiin ugu dambeyntii aniga ayaad i qabateen aniga ma ihi Ciisa Yahuuda baan ahay idaaya. hadalkiisna dhag looma dhaadhicinin mana loo dhagaysanin. waxaa loo geeyey qasriga oo taliyaha. qasrigani waxaa joogeen dadkii odayaasha oo
bani israa'iil ahaayeen iyo roomaanka waxay xukmeen yahuudda wax xun in lagu ciqaabo yahuudan wuxuu ku dhacay meel oo xun qof badbaadiyani waa waayey wuxuu dhahay aniga ciisa miihi yahuudda baan ahay mid ka mid ah wadaadada ayaa kheeliyey wakhtigaas wuxuu dhahay wakhtiga oo xukunka waa yimid ma waxaad sheeganaysaa inaad nebi ad tahay yahuudda waxaa isku dayey inuu u sharxo arrinta laakiin muxuu sharxaa yahuuddaba waxaas lahaaday codkii oo ciisa calayhi salaam dib waxaa loo keenay miraayad waxaa loo dhahay miraayadan isku fiiri markii miraayadii isku fiiriyey wuxuu is arkayba ciisa inuu u ekaaday kadib wuxuu isdhahay god baan qoday godkii aniga ciisa aan u qoday aniga ayaan ku dhacay maalintaas kadib markii maxkamadda la soo taagay yuudas waxaa loo qaaday meeshii ciisa lagu talagalay dadkiina waxay u muleynayeen in oo nebigii ka takhalluseen iyagoo dhab ahaantii ciqaabayay khaa'inul waddankii wadaadadii iyo roomaanku waxay u muleynayeen inay ka takhalluseen ciisa laakiin runta si tartiib ah ayay u faaftay waxay dhaheen dadkii dhan ciisa lama dilin ilaah baa soo sare kiciyey dadka qaar ayaa bilaabay inay su'aalo isweydiiyaan haddii uu runtii ciise as ahay qofkan muxuu isku difaaci waayey maxaa si lama filaan ah u beddelay muuqaalkiisa miyuusan ahayn kii soo nooleeyey kuwii dhintay haddaba sidee loo dili karaa laakiinse nebi ciise calayhi salaam dadkii la jireen waxay ogaayeen runta waxay indhahooda ku arkeen sida ilaah si mucjiso ah u badbaadiyey nebigiisa waxay dhaheen wakhtigan ma aha wakhtigii anaga aamusi lahayn maxaa yeelay nebi ciise calayhi salaam intaanan bixin ka hor arrintii na faray waa inaan samaynaa mid ka mid ah qofkii oo rumeeyey nebi ciise calayhi salaam ayaa istaagay oo qalbigiisa ku jira kalsooni aan kala go' lahayn wuxuu yidhi dadkii oo nebi ciise ay raaceen i dhegaysta ilaahay wuxuu soo sara kiciyey nebigiisa laakiin wuxuu naga tagay hawsheenni waa inaan gudbinaa ereygiisa waa inaan u sheegnaa adduunka waxa aan aragnay sidaas darteed xeertii waxay bilaabeen safarkoodii iyagoo u kala gudbinaya tuulo ilaa iyo tuulo iyagoo faafinaya fariinta midnimada ilaahay waxay dadka bareen rumayska ilaahay in ilaahay la rumeeyo iyagoo u sheegaya mucjisooyinkii ay ku arkeen nebi ciise calayhi salaam sanadooyin badan markii diintii oo faafay dadkii dhexdooda waxaa imaaday khilaafaad dad qaar waxay dhaheen nebi ciise calayhi salaam ma ahayn nebi oo caadi ah wuxuu ahaa ilaahay wiilkiisa intaas ayay ku dareen laakiin nebi ciise calayhi salaam ma ahayn ilaahay wiilkiisa markaas kadib gadaal haddaan qisada aan u noqono nebi ciise calayhi salaam waxaa loo okeeyey yahuudda way xidheen waxay ku xidheen birtii oo kirishtiyaanka ahaa way sureen way dhagaxmeeyeen way dileen dadka hadda oo ay haastaan masiixiyiinta waxay dhahaan ciisa waa ilaahay wiilkiisa mar walba waxay u jilib jabsadaan kirishtiyaankaas oo yahuudda lagu xidhay ee ciisa ma ahayn walaalahayga yahuudda ayaa lagu xidhay mid oo ciisa loo soo ekeeyey maxaa yeelay ciisa ilaahi subxaanahu casa wajalla wuxuu u qaaday samada marka walaalahayga sidaas waaye qisada oo nebi ciise calayhi salaam nebi ciise calayhi salaam markii oo kirishtiyaanka lagu xidhay oo jidkii la wadaayey oo la wadaayey dadkii way dhagaxmeeyeen waxay dhaheen hala dilo kan hala taago hala waxyeelo ugu dambayntii waxaa la dilay yahuudda lama dilin nebi ciise calayhi salaam walaalahayga qisadii nebi ciise calayhi salaam halkaas ayaa noogu dhammaaday waa qaybtii ugu dambaysay walaalahayga fadlan walaysa amran waxaan idinku codsanayaa inaad i gaarsiisaan 500,000 subscribe insha allah filimkaani waxaa lagu habeeyey studio saafi oo ku yaala dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada baadabo waxaana idin soo habeeyey walaalkiina aslax abasaafi sidaas iyo nabadgelyo